ما ogtahay 80% of brain development iga mise boqolkiiba 80 kobcinta maskaxda bini'aadinka inay hirgasho 3 sano ugu horeyso nolosha ma la socotaa every second mise every ثانية mise ilbiriqsi walba maskaxda cuniga ilaa uu ka gaaro 2 jir inay samayso 700 oo new connection cusub mise acsaab cusub inay samayso ma la socotaa waxyaabo oo saameyn karo saameyn u keeni karo maskaxda cuniga mise dib u dhac u dhigi karo inay jiraan oo la rabo in waalidka ka dogtoonaado such as toxic stress wax la dhaho mise waxyaabo kale aan ka hadli doono videogan bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada walaashiina sucaad videogan waxaa uga hadlaa muhiimadda ay leedahay 2 sano ugu horeysa nolosha cuniga iyo waxyaabaha ixtiyaajaadkiisa oo u baahan yahay inuu helo oo muhiim tahay iyo waxyaabaha oo khatarta ku ah mise maskaxdiisa dib u dhac u keeni karta ee u baahannahay ka waalid ahaan inaan ka digtoonaan waxaan rajaynaa videoga inaan wax ka faa'iidaan bariis hadaa wax ka faa'iiday mise qof kale oo wax ka faa'iidi kara u malaynaya bariis la share garay dadka thank you so much dadka janaalka kusoo biiray waa mahadsantiin jazakumullah khair barsho wanaagsan welcome dadka kaleeto nala joogay from day one waxaan leeyahay jazakumullah khair iyaantan xoogaha mashquulsanaa iskuulkii oo bilowday schedule-kii oo isbedelay waxyaabo badan oo beginning year of school academic year-kii oo bilowday marka waxay ii keentay inaan xoogaha focus ka saaro my role as a mom and getting used to the new schedule iyo establish schedule guriga inaan habeeyo saasa aan ku maqnaa 2 beri laakiin I'm back right now insha Allah waxaan rajaynaa inaan at least week walba hal video aynin soo daayo video samaystana easy ma ahan waa shaqo culus laakiin waxaan rajaynaa insha Allah inaan dhiirigelintiina iyo supportigiina oo ii noqdo dhiirigelin anigana aan push gareeyo aan iska soo gooyo at least waqti hal video weekii anyway videogan maanta waxaa ugu talagalay muhiimadda ay leedahay 2 sano ugu horeysa nolosha bini'aadinka iyo fahmidda u baahanaa inaan fahano because waxaa laga yaabaa qof walba inuu isdhaa maxaa 2 sano ugu horeysa nolosha looga hadlaaba waa waqti aan la xasuusanba waxaa laga yaabaa qof walba inuuna xasuusan 2 sano ugu horeysa noloshiisa wuxuu uu sameynayay mise experience-iga oo soo wajahay waqtigaas laakiin waxaa la ogaaday oo true study buxuudka soo saareen in 2 sano ay muhiim tahay khaasatan ahaan ilmaha yaraanta dhan ay muhiim tahay the first 5 years muhiim tahay haddana 2 sano gaar ahaan ay muhiim u tahay in waalidka loo sheego muhiimadeeda because waxaa badanaa way ka hoos baxdaa waalidiintu waxay isleeyihiin cuniga wuxuu u baahan yahay in diaper laga bedelo caano la siiyo meel la dhigo baby waa ilan waqti wax ma hadlaayo agekaas communicationkiisa iska yar limitkiisa iska yar waxaan u malaynaa inaan uuna fahmaynin oona adduunkiisana fahmaynin laakiin waxaan ka hadlaynaa marka insha Allah waxyaabaha dhacooya maskaxiyan ahaan oo brain developmentigiisa stagekaas markuu marayo cuniga احتياجاتك وباهي هاي كعنق أهان سو احتياجاتك وباهي واسدح احتياجات وباهي عنق جعيل إنه دريمو وباهي أمان إنه هلو سيفتي أو دريمو وباهي وجدان إنه هلو مس إنه أو دريمو سكورة attachment إنه بلدقرا وباهي سو كهلا وبسدح هذا الشيء احتياجاتك سان سو شيء سو كهلا جعيل كاس إيو طريقة ذي بدنا الحمد لله إلها وحنا قلت لقلي وحوكوها لا ترو ما هو يذا connection كذا وهو يذا دور وين كعيارة إنه يسدح له احتياجات أي أساسته of course والدك كلا إذا تكلا تو caregiver كانوا كجرانتك أو عنق كور قبو لكن هو يذا وحاول مهم تاي والرضاعة ذي مثل الناس نوجنتي أو حي وفوضين عنق إنه أمان دريمو ما دام عنق أو هو يذا هنا يسوختي بدن skin to skin أي كور كذا يكور عنق استابنايان ودرجة حرارية حتى أو temperature كيسة حتى أي رجلت جرينة هو إذا stress كيرينا عنق مركع عبار هي سيدي لناس كانوا جنت معهن 5 minutes للضوء كلت معهن usually وحاول وحي قاضنا سا وقت دير at least عنق أو مشوا ناس وكسي حنا عبار وقت جاس مركع أو هي سمداس أو إذا هاي إنسو وحو كهلا عنق safety وكهلا وحو كهلا جعل وكهلا so هدي عنق هو إذا أين breastfeed جرين كريم سئنا ناس سيكرين because هو يوم بدنا عنق ناس سيكرين for several reasons taas ma aha marka inay eegana ay muhiim inay tahay naas kale ma muhiimadu waxa waay heesmadaas waqtiga dheer ah in cuniga la haayo waqti dheer si uu u helo dafigaas iyo xanaankaas iyo jaceelkaas iyo safetygaas from the first cuniga markuu caloosha ka soo baxay usually ma cabsi ay la soo baxaan way oynayaan
saacadda ugu horeyso nolosha xataa waxay leedahay gaar ahaan in aragti gooni in lagu fiiriyo u baahan tahay because waxyaabo badana cuniga iyo waalidka baduu fahmo ay ka caawin kartaa inuu uu pay attention u sameeyo because cuniga first waxaa laga yaabaa in first maalin video kale aan ka hadla anyways the first hour of life laakiin hadda muhiimaddu waxaa waaye in hooyada hadayna breastfeed garaynayn hadayna naasiinin cuniga xataa ay isku taxluujiso inay cuniga cabaar ay hayso oo dafci hayitaanka marka la haynayo waxaa muhiima in hooyada ay nafsirkeeda ay ku faraxsan tahay hayitaankaas iyada naftirka emotionkeeda markaas ilmaha markay yaryihiin waxaa la ogaaday in emotionka waalidiinkooda ay dareemaan wixii adiga dareemaysa iyagana way dareemayaan ayagoo caloosha ku jiraan ay bilaawaanba so maskaxda cunigan waxay kula bilaawataa kubcinteeda of course caloosha iyagoo ku jiraan adduunka markay soo baxaan way sii kubacdaa way sii develop garaysantaa so waxaa muhiim ah hooyada marka stresskeeda iyo inay iska yareyso inay fahantay in waxay iyada dareemay cunigan dareemayo ee misaas marka ay isku taxluujiso in ay wejigeeda farax ka dhigto oo xataa marka ilmaha xoogaha soo roonaadaan ilmaha wejigaaga ay fiirinayaan igoo baby ah wejigaaga hadduu mujacbuus yahay mise wejigaaga hadduu stress ka muuqato waxaas dhan iyagana way internalize garaynayaan iyagana way dareemayaan wayna saameynaysaa markay soo roonaadaan way aaday usii saameynaysaa so waxaa muhiim ah hooyada inay communicationkeeda iyo wejigeeda iyo iska fiiriso ay stresska iska yareyso si cunigoos u dareemo amniga iyo ammaanka ilmaha yaryar waxay dareemayaan aaday wax u dareemayaan waxaa kaloo study kale hadda kor la sameeyo waxaa lalahay cunug yar oo sariir ku jiro baby oo infant ah crib ku jiray iyo domestic violence waxaa lahaa violentigan oo ilmaha oo waalidiinta gacanta isku qaadaan so kaysaa jiray olonga oo cabaar socda maraykanka dhacay hadda kahor laba waalida wuxuu sameeyey violence oo domestic violence ilmo hortooda experience gareeyeen hooyadooda suxuun loo dilay dhiigii it was a big violence anyway kayska marka familkaas waxaa u joogay 3 cunug midna 5 jiro ahaa midna 10 jiro ahaa midna waxaa waa baby u ahaayo waa cunug sariir ku jiro karib waxba meeshiina ayna joogin meesha wax ku dhacayeen guriga wuu jooga laakiin ma arki karo cunug sariir ku jiro qol ku jiro ahaa kuwa kale laakiin saalada joogeen oo wixii arkeen violentigi oo dhacay meesha ka dhacay mise dhibaatada meesha ka dhacaysa oo aabaha oo u geynay hooyadooda maxaa marka ilmihii la daraaseeyo daraasad dheer ku socotay ilaa ay ka weynaadaan qof weyn ka noqdaan waxaa la arkay cunugii sariirta ku jiray oo qolka ku jiray wixii markaas violentiga dhacay oona ka warqabin sida anaga u malayno in saameynta isaga soo gaartay more ahead oo mentally iyo emotionally soo gaartay inay ka saaidsaneed labadii kaleeto oo weynaayeen ka 5 jirka ahaa kan 10 jirka ahaa taasoo marka ay sheegaysa in ilmaha xataa haddaynan physically meesha u joogin xataa hadday baby oo sariirta ku jira ay yihiin in hadday violence iyo waxyaabo oo waalidka ku dhaco oo dhib u keenayo emotionalka iyo stress hadda guriga imaada iyagana inay dareemayaan ay taasi cadeynayaan so waxaa muhiim ah in dadka waalidiinta ah murunka iyo violencega iyo haddii violence jiro domestic violence jiro inay ogaadaan cunigan ammaankiisa part of it ay ka tahay inuu ammaan dareemo waxaa muhiim ah in waxyaabahaasna guriga ayna ka dhacaynin oo meel safe aamin ah oo haysto waalid jecel in la dareensiinayo taabashada hooyada u baahan cuniga taabashada hooyada xubbigaas ay ku abuuraysaa jecelkaas iyo amnigaasna waxay u fududeynaya xataa hadhow waxaa lagu leeyahay relationship cuniga markuu samaysto xiriirkiisa oo qof weyn noqdo waxyaabahaas markuu isagoo baby ahaa baby 2 sano ugu horeyso waxyaabahaas soo helay jecel iyo amni iyo wijdaankaas oo soo helay waxay u caawinaysaa markuu weynaado in relationship oo secure oo samaysan karo secure attachment waxa la dhahaa jiro attachment yaalka waa ka hadli doonaa Soomaali exactly waxa lagu dhahaa ma kasaay laakiin 4 shay oo 4 nooc waxaa jirta oo attachment waxa la dhaho ilmaha loo fiiriyo sida xiriirka iyo waxa waa xiriirka waalidka cuniga ka dhaxeeya la dhahaa actually so xiriirka oo waxa ugu fiican oo waalidka cuniga ka dhaxeeya oo secure attachment waxa la dhahaa kaasna waxa lagu gaaraa in cuniga uu helo waalid oo ka warqabo waalid oo safe ku dareemayo oo waalidkiina markuu cuniga ooyo oo ka warqabayo oo caawinayo oona u daynayn oohinta because oohinta badan stress ay keenay waxyaabaha kale aan rabo inaan ka hadlo waxaa waaye dhibka waxyaabaha khatarta ku ah cuniga waqtigaas 2 sano ugu horeyso oo khatar u keeni karta hadoona helin mise hadduu experience garay mise hadduu la wajaho so maxaa waaye waxyaabahaas hadduu ay soo wajahaan oo
dib u keeni karto waxaa ka mid ah lahay toxic stress waxaa la stresska oo aan fiicnayn stress fiican jiro healthy ah waa ka hadli doonaa stresska xun waxa waaye in cuniga lagu dhaafo oo hin badan oo oo maskaxda because waxaa la stress markaa ku jirtid oo stress aad tahay wadnahaagi korkaaga dhacan oo soo daynaa wadnahaagi heartbeatka kore u kacaysaa waxyaabo badana internally oo bani'aadamka uu dareema dakhliyan ahaan uu dareema waxyaabahaas markuu dareemo oo maanta dhan oo waqtiyo badan oo dareemo ay kusoo laabto stresskii kusoo laabto waxay noqonaya marka waqtiga oo maskaxdiisa stress ku jira badane taasoo marka maskaxdii maadaama ay maskax ay development gareynayso oo kubcooso ay tahay wixii markaas bata moor xoogana wixii yaraadana waxa way yaraanayaan waxaa marka waxaa connectionkii waxaa moor samaysmaayo cabsida connectionkii waxaa samaysmaayo la ima kaargareynayo connectionkii waxaa samaysmaayo la cuniga inuu dareemo stresskaas xun inuu dareemo maskaxdiis marka meesha stresska active more ahaata kaasoo marka dib u keenay marka cuniga weynaada in easily stresskiisa easily active ku noqdo in meeshii oo toxic stresskii dhibka kasoo gaaray oo daba socdo cunigii oo emotionkiisa regulate gareyn kari maadaama emotionkii markuu yaraa asaaskii guri walba guri marka la sameynayo asaaska hoos haddii ay xumaato korkaas haddii la gaaro hoostii mar walbaba wixii xumaaday waxaa waaye dhibaatadeeda way kasoo muuqanee dhismada saasoo kale waa marka cuniga haddii hoosta in la ogaado 2 sano ugu horeysa ama 3 sano ugu horeysa or whatever ugu horeey early age-ka ugu horeysa nolosha bini'aadamka waa waqtiga oo cuniga oo baranayo dareen wuxuu yahay waxa safety-ga la dhaho waxa stress la dhaho waxyaabahaas dhan oo baranayo so waxyaabaha anaga more experience gareeyo any experience whether it's positive experience fiican mise khibrad fiican mise khibrad xun khibrooyinku anaga naga helo environmentigu joogo ka helo waalidkiisa oo ka helo saameyn weyn ay ku lahaaneen maskaxdii kobcinta maskaxdiisa stresskaas toxigana waxaa la arkay in ay dib u dhac u keento maskaxda inay hadhowna affect gareysa maskaxda dhanka xasuusta iyo maskaxda dhanka oo problem solvingka iyo learning waxbarashada dhanka waxbarashada iyo dhanka problem solvingka ay dib u keentaa so cunigii oo dhibkaas kasoo gaaray markuu yaraa markuu weynaada dhib maxaa laga arkaa ereyadaas so marka ilmaha yaryihiin maskaxda oo waxaa more active ah dhanka waxaa more active ah emotionka iyo process gareynaya oo dhanka oo safetyga jaceelka any kind of emotionka meesha ay process gareynaya more active ah xasuusta active ma aha that's why anagaan u xasuusanin 2 sano oo noogu horeysa nolosheen waxaana soo gaaray mise waxa aan soo aragnay laakiin waxaa more active ah dhanka shucuurta emotionka so shucuurtaas haddii stress loo badiyo mise oohin badan oo cuniga experience gareynaya mise waalid aan jacbuus mise waalid stress oo soo qaadaya qaaditaanka iska dhigayo oo soo qaada sii dhig lay tahay cuniga laakiin connection iyo jaceyl iyo qof oo maskaxdiisa ka shaqaysiinayo oo help gareynayo jaceylkii oo meeshii wixii build gareysmooyo oo maskaxdii ku bixiyso qof ka warqabo waxay maskaxda cunigan ay samaysmooso waxyaabahay u baahan tahay oona keer gareynayo hadoona qabin waxa ay markay cunigii khatar ku noqonaya maskaxdiisa ay hadhow dhib u keento dhib kasoo gaara experiencegan oo hadhow markuu weynaadana arko waxaa laisku barbardhigay hadda kahor research la sameeyey ilmo oo orphant ah mise ilmo daarul aytaam ku jiraan waxaa la baxsi lagu sameeyey iyo ilmo kaleeto iyagana waalidiintooda la joogaan oo waalid ka warqabo oo foojigsan oo og ilmaha waqtigay marayaan iyo maskaxda ku cusub waxyaabahay u baahan tahay ka warqabo oo responsive ah marka waxaa la arkay maskaxdii scanner la geliyay ilmaha picture scanner la geliyay maskaxdii la sawiray maskaxda cuniga oo daarul aytaamka ku jiro 2 jirka ka yar iyo maskaxda waxaa la sameeyay cuniga oo waalid oo haysto waalid oo responsive ah marka waxaa la arkay maskaxdii cunigii 2 jir oo daarul aytaam ku jira inay eber oo kala tahay sawirkeeda oo faraaqaad badan la leedahay maskaxdii kale cunigan oo waalid ka warqabo oo haystay waxaa la arkay maskaxdiisa ay buuxdo oo ka weyn tahay size ahaan taas marka waxay tustay maadaama in experience-ga oo helay cuniga khibrada oo mise area environment-ga iyo waalidka oo haystay inay saameyn ku lahaatay kubcinta maskaxda way kubcay dadkan oo maskaxdooda kubcaan laakiin qof walbaba kubcintooda waxay ku xidhan tahay experience-ga oo helay cuniga iyo environment-ga ku jiro waalidkase ay nurturing u yihiin
ay ku xiran tahay so taas marka waxay noo cadaynay in ilmihii daarul aytaam ku jira way helayaan waa la dhaqaayay daawir waa laga bedelayay shaqaala u joogtay laakiin shaqaaladaas mis qofkaas oo takergaynaya caregiverkaas ah qof ma ahan oo bounding la sameynaya ilmaha qof ma ahan oo ilmaha oo safety u samayn karay oo secure attachment u samayn kari maahan qof waxay ahayd shaqadiisa la samaysanayo so farqigaasa u dhexeeya so taas waxay tusinaysaa in neglect dayacaada inay ka imaanayso dayacaad inay tahay haddii cuniga waxyaabaha ixtiyaajaadka oo physically u sameyn ixtiyaajaadka daaybar bedelitaanka iyo caanasiiska iyo nadaafada iyo cuntada iyo hadaa aan ku focus garayno laakiin aan ka warqabin waxyaabahan kaleeto stresska laga ilaalinayo iyo wihitaankaas lagu daahinaynin iyo korka oo cuniga maskaxdiisa oo laga shaqaysiiyo hadhow gadaalaan ka sheegaya waxyaabaha maskaxda ay ku kubceyso oo waalidka loo baahan yahay inuu u sameeyo cuniga soo ay maskaxdiisa u kabacdo healthy way ahaan haddaan u sameynayn taas cuniga marka limitation ay face garaynayo oo negatively hadhow waxa waaye u affect garaynayso waxyaabo badanaa ka naaqusisan oona helaynin oo heli kari haddoo waalidkaas ka warqabi lahaa so marka sidee lagu caawi karaa waa su-aasha marka ilmaheen labada jijka ka yar ugu caawi karnaa si maskaxdooda ay ku bacdo healthy ahaan aan uga qayb gali karna ka waalid ahaan waxa ugu muhiimsan u sameyn karna waxa waa in ahaan waalid responsive ala waalid foojigsan oo akhri karo oo fahmi karo cuniga signalkiisa in cuniga waxyaabaha oo wajigiisa akhri karo cuniga markuu xanaaqsan yahay cuniga markuu oynayo oohintiisa kala sheegi karo ma oohin gaajamiya ma oohin maxaa lahayd wax ma u dhibsanaa oohinti ma xanuun ma ahaayo waalidka waa inuu marka cuniga ooyo mas cuniga emotionkiisa la soco karo oo waalid foojigsan uu yahay responsive yahay oo u respond garaynayo cuniga wuxuu u baahan yahay mar walbaba fahmayo la rabaa waalid oo orso waxaa la rabaa marka cuniga oo caawinaya isla sidii la u caawinaya mar walba laakiin lama rabo mar inaa cuniga la caawiyo marna oona kaa helin caawitaankii marna maanta dhan haysidoo cunigii oo care iyo helo marna marka ooyo laska tuuro oo mise adoo stress aa muujisadooda oo hintiisa aa shibka dhahdid mise baahidiisa aada fahmaynin mase si qalad u akhriso oo asdhahdii taleefanka iskaga dhiibtid marka waxoogaa soo roonaado oohintiisa markuu kugu qayliy baa taleefon iska siisid mise waxyaabo kale iskaga xirtid oohintii laakiin aada fahmin waxyaabihii loo baahnaa inaa fahad connectionkii fahanka uu kaa yaraado oo adiga cuniga dhexdiina ka yaraado responsivenimadii la rabay taasoo marka keenaya in cunigii affecti ku samayso so waxaa loo baahan in waalid oo responsive noqono mise waalid foojigsan oo fahmaya ilmaha markaysas u yaryihiin maadaama ayna hadli karin maadaama communicationkooda oo hadalkooda oo limited yahay ina aan fahno taas oo marka aan isku dayno waalid foojigsan dareemooyinkoodana aan caawin ta labaad waxaa waa in cuniga aan u view garayn cuniga asagoo 2 jir ka yar from day one ina maalintuu caloosha kasoo bax waa inaa u aragnaa qof partner oo kale ah qof shakhsi human ah oona dareemayo na fahmayo ixtiyaajaad leh oo anaga ixtiyaajaadkiisa oo ka weyn just physical stuff waxyaabaha badalataanka nadiifada iyo caanada siinka iyo waxyaabo ka weyn inuu u baahan yahay cunigan in la hadlo inuu u baahan yahay sida qof weyn oo kaleeto in loo sheekeeyo in stresskiisa la control ilmaha yariis stress ay qaadayaan stresskooda ina anaga aan control garayna because anaga inagu xiran tahay waxyaabahaas soo waalid waxaa rabaa in partner oo kale ina u view garayno cuniga markaa u sheekeyna ilaa la hadashid oo u sheekaysid aad ka sugtid marka aad tookadaan ileen qof partner hadaa u view garayso cuniga adi keligaa leen iskama hadlaysid iskama soconaysid waa sugaya cuniga isla tookadiisu inuu kuusoo jawaabo soo baby ah xataa markuu yaryahay wuxuu kugu jawaabaa qosolo kugu jawaaba babygu kugu qoslaa markaa wax u sheegtid mise u haystid mise waxyaabo communicationkaas aad la samaysid waxaa laga yaaba cuniga baby talk uu kuu sameeyo isna baby hadalka baby ku hadaaqaas waa communication so marka taas inaa active ka dhigno oo cuniga oo ku lala hadashid oo u haystid oo ka warqabtid oo two way ay noqoto back and forth ay noqoto adiga keligaa la ahayn oo iska haysin laakiin aa u sugtid oo waqti siisid in cuniga uu kuu soo jawaabo asna taas marka wax weyn ee u taray cuniga maskaxdiisa tan saddexaad waxaa waa in cuniga waxaa loo baahan yahay in lagu bilaabo waxyaro healthy stress wax la dhahayo inuu experience garaysa maskaxdiisa ku bacdo healthy stress waxaa la dhahaa stresska caafimaadka leh mise stresska fiican stresska laba qayb u kala baxaa midka xun waxaana kan la rabo waa in laga ilaaliyo ilmaha markay yaryihiin khaasatan 2 sano ugu horeyso
كان في عنه لكن healthy stress ka waxaa loo baahan yahay in tartiib every time maalin walba wax yar oo healthy stress ah kaas waxaan ku siin karnaa in cunuga toy hortiisa loo dhigo oo cunuga soo sigto strike inuu soo qabsado waxaasoo kale kaasoo kale waxaa la dhahaa healthy stress la dhahaa cunuga wuxuu isku dayaa inuu soo qabto markuu qabto wuu farxaa inaa dhiirigelisida uu kaa dareemo wejigaaga inaa farxsan tahay in markoo frustration noqdo ilmaha markay wax soo qaban karin maanta ay try garayaan waxa waa ciyoobay xataa xanaaqayaan iyaga naftarkooda waa humans little humans way so markay xanaaqaan ooyaan ina meesha available u tahay u joogtid oo cunugii oo aad u sharxi kartid yani hada helbagareyn kartid in yani sharx waxa laga wadaa of course communication ma sharxi laakiin sharxi waxa waa si adiga u respond great situationka asa adiga falcelintaadii in cunuga caawiso dhib ma lahan ma qabo weyse anaa ku caawinayo tookada anaa inta ku joogo dhib ma lahan waa qabo kartaa next time aa qabanaya inuu cunugii uu kaa maqlo sida loo respond garay sida stresska loo manage garay oo kaa barto remember stress management hadday ka bilaawnaysaa inaa bartid so daawo laakiin marka ooyba adiga naftarkaaga nervous noqotid mise mise adiga naftarkaaga guilty kusoo galo ka xumaatid waxaa samaynaysid all that stuff emotionkaas dhan cuniga way u gudboosaa so isku day inaa cunigan emotionkiisa oo baranayo ina adiga marka aad ka caawisid inuu healthy stresskaas waxyaaba ay ku bilowdid oona halbagaraysid markuu stresska ka bato healthy stresska inaa ku caawisid inuu u manage gareyn lahaa isaasoo kaa barto maskaxdiina marka ay maadaama ay maskaxdii ku buuxso stressaa lagu furay haddana waa la caawiy waxyar healthy stress yaraa lagu furay oo challenge gareyna maskaxdii caawinaya inay weyno ku bacdo waana waxaa waaye waana la tusi cunigiisa u manage gareyn lahaa taas marka waxay ka caawinaya cunigii problem solving hadhow marka uu weynaado xoogaa ronaada in problem solve gareyn karo in dareemihiisa deji kara maadaama adiga ku bilowday markuu yaraaba dareemihiisa aad ka warqabtid aad dejinaysa marka ay kacaan oo ka arkayo maskaxdiina ay baratay oo ay connectionkaas build garaysmay maadaama connectionkaas xoog garaysmay waxa waaye wuu sii xoog garaysmaale maahan ma yaraana laakiin kuwii oo xun hadday bilowdaan ayagana saas oo kale ka stress toxic stresska doomo xoogaysto kaasaasna more ahaana qof toxic stress marka inaa andu lagu sameeyo waxaa ka fiican oo healthy in cuniga lagu bilaawo in healthy stresskaas hadhowna markuu soo weynaa puzzle iyo waxyaabaha laisku rakibo iyo so cuniga maalin walba inuu helo waxyaaba maskaxdiisa ka challenge garaynaysa waxyar stress ku furayso ay si maskaxdiisa u caawiso saddexdaas shay aan dhahnay so waalidka inuu responsive ahaado in cuniga u arko qofkan qof kaamil ah oo u baahan two way communication u baahan dialogue u baahan oo dareem in loo sugo waqti lasii u baahan in qof stress yar lagu furo haddana stresskii laga caawiyo u baahan oo la baro sida u manage garayna stress because humans emotional la imaadaan from day one but full of emotion waaye so inaan ku caawino inaan ogaano maskaxda dhanka emotionka inay more active tahay dhankaasna hadhow waxbarashada ilmaha iyo problem solvingkooda iyo waxyaabaha dhan ay ka caawinay inaa ogaatid stresskaaga iyo adiga iyo aqoontaada iyo shaqada aad sameynay resultigeeda insha allah inaa helaysid isku day inaa ogaatid annaga dhan xasuusinoo tahay marka qofkii waxyaabahan xataa cunug weyn haddaa qabtid xataa inaa waxyaabahan aad dib ugu laabatid aa fiirisid waagaas marka cunugayga yaraa talow anigaysay ahaan how did I respond waxyaabahii marka cunugayga aan iga kasoo gaara experiencegaas how marka tartiibli I can andu ugu samayn karaa aan dib uga habeyn karaa mise aan ugu caawin karaa waxyaaba mar walba maskaxda biniaadanka way sii socotaa way sii kubcisaa waxyaabaha hadii mar walba waxbaa laga samayn karaa gifa ma jiro so intaasaa kusoo dhimay insha allah waxaa mahad u celinaa man laa yashkura naas laa yashkura alla dadka nagu soo biiray oo encourage garayna comment isoo diray dadka requestiga samaystay oo several videos request gareeyay waa ujeedaa requestigiina I will respond iga raali naqday intaan busy ahaa waxaan ku mashquulsanaa iskuulkii oo bilowday schedulekii ilmaha oo isbedelay waxyaabo badan oo scheduleka isbedelay aan ku focus gareynaya ma rabin ina aan mashquul kale isaaro haddana waxyaabo kaleetan intaan gacmahan kula jiray waxyaabo kaleeto oo more scheduleka aan kusoo darsadayna waxay noqotay ina aan youtube-ka xogaha aan breakin ka qaato si aan ugu focus gareeyo of course maamanimada iyo shaqada maamo shaqaysa ahay ogaada yani
free time iska may qof free xataa maamo guriga joogta xataa ahay daan hay mar walbaba maamada shaqadeeda ma dhamaanayso so ilaahay garabkeena ha galo waxaa waay laakiin waxaan jeclahay in aan idinla sheergareeyo waxa aniga iyo waxyaabaha waxa aniga ka faa'iiday mise waxyaabaha aniga aan soo maqlay mise waxyaabaha aniga aan aan clinic ahaan u isticmaalo dadka la shaqeeya oo la isticmaalo so please hadaa wax ka faa'iiday dadka la sheergareey jazakumullahu khair ii sheeg hadaa adiga waxyaabahan cunug yar haysatid do you feel cunigaagi waxay masadaa cunug weyn haysatid laakiin waxyaabahan soo sameeyay maxaas leedahay videoga aan ka qaatay waxyaabaha wax aan ka bedeli kartid mise waxyaabaha aan kaaga soo baxay videogan hal shay mise wax shay one or two things oo kaaga soo baxay videogan hadaa nala sheergareyn kartid way fiicnaan lahayd jazakumullahu khair assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh walaashiina Sucaad Nuur waay fi amaan illah